inta waxa loogu talagalay in xafladda loo dhamaado marka koowaad dardaaranku wuxuu ahaa ay madaxdu noo sheegeen markii xafladda la qabanqaabinayay Soomaaliya way guuleysatay oo qofna ma guuleysanin muxaafid iyo mucaarad dhamaanteen waa la wada guuleystay qodobka labaad galabta markii go'aanka la gaaray xogaa waxaad moodaa dad badan inay amba tageen go'aanka horta wuxuu ahaa go'aan qaanuun go'aan sharciyeed hal saacna waa la akhrinayay intii la dhageysanaysay hawl fudud oo qofka uu si fudud u fahmi karo qofka caadiga ah loogu talagalay ma ahayn laakiin meesha waxa ka soo baxay waxa ugu muhiimsanaa kow inay Kenya qaabkii ay sheegatay oo ay rabtay xuduudda in loo xadeeyo laga diiday macnaheedana waxay ahayd sidii Soomaaliya ay rabtay ayaa loo ogolaaday labo Kenya waxa ay ku dooday inay ammaankeeda darteed xuduudda sida ay iyadu ugu talagashay u rabto ayadana waa laga diiday saddex Kenya waxay ku dooday kalluumaysatada meel ay soo maraan inaysan helaynin arrintaasina arrin sharci ah inaysan ahayn loo sheegay waa laga diiday sidoo kale Kenya waxay ku dooday xuduud hore u jirtay oo xuduud badeeda inay jirtay ayadana waa laga diiday markii dambana maxkamaddu waxay xukuntay sida ay Soomaaliya u rabtay arrinta dalka iyo dadka Soomaaliyeed hambalyaan leenahay madaxda muxaafidka iyo mucaaradka hambalyaan leenahay midowga murashaxiinta wuxuu idin leeyahay soo dhawaada habeenkan xafladda iyo dabaaldegga 12 Oktoobar oo noqday habeenkii calanka Soomaaliyeed ee noqday habeenkii badda Soomaaliyeed cid walba ee lagu dulmiyay oo dhibaato loogu geystay raalli ha ahaato wixii hadda ka hor dhacay ka mayro caawa badda Soomaaliyeed waa la wada difaacay kow ilaa dhamaad waa la wada difaacay aad iyo aad baa u mahadsantihiin guulaysta